Asalaamu calaykum saaxiibayaal kusoo dhawaada janaalka Somali Tutorials. Fadlan janaalka haddii aad ku cusub tahay subscribe noo saar, sidoo kalena muuqaalka inoo la garay. Haddii aad hore noola joogteen waxaan ku leeyahay mar labaad soo dhawow. Maanta muuqaal kale. Maanta muuqaalkeena waxaan kaga jawaabi doonaa su'aal aad u badatay hadday noqoto WhatsApp-ka, Telegram-ka, YouTube, yani commentiga, xitaa postiyada dhexdooda meel walbo. su-aashaasna waxaad ka soo aragtay title-ka iyo thumbnail-ka muuqaalka. Saaxiib, su-aashaas waxa ay tahay ma iibisaan website approval ah ama website approval ah ma gadaan? Mid baan ku sheegaa ama mid baan idin sheegaa dhalinyaro. Dadka scammerska ah inta badan waxyaalaha dadka ay ku qaldaan taasaa ka mid ah. Dhammaantiin inta muuqaalkan daawanayso hal su-aal baan idin weydiinayaa. Ma jiraa qof idinku jiro oo sameyn karo warshad markaa lacag u sameynayso isaga oo ka maarmi kara dan iyo duruufna aysan u heenin dadka kale si ay ku helaan ay adag tahay inuu iska iibiyo? Jawaabtu waa may. Website-kaaga mar haddii la soo aqbalo waa warshad maalin walba lacag ku sameynaysa oo xitaa lacagtay shala samaysa lacag ka badan ku sameynayso. Adoo marka maalin walba intaasoo dollar sameyn karaa, website-kaaga ma ka bixi lahayd 50 ama 40 ama 30 waxyaalo noocaas ah? su-aashaas igaga jawaab. midda koowaad commentiga ugu soo jawaab. midda labaad, hal mid bay ku dhici kartaa qofka inuu iibiyo. halkaa midna waan ku sharaxayaa. waxa ay noqon kartaa qofka in AdSense uu soo aqbalay, laakiin AdSense maadaama identity verification uu soo kordhiyay oo sharci loo baahan yahay in lagu verify gareeyo passport iyo ID iyo driver license waxyaalo noocaas ah, qofkii shalay uu ku xirtay inuu shakiyo uu ka diido qofka uu yiraahdo kulama wadaagi karo passportkeyga iyo ID-geyga iyo driver license-keyga midba kulama wadaagi karo, qofkii dadaalkiisa waa hal bacaad loo lisay, lacagtaas uu sameynaa leemaana ma la bixi karo. Option-ka way sababi kartaa qofka inuu soo lacagtii ka gashay ka soo cesho. Adigu hadda iibsatay maxaa ka faa'iiday marka waxa la verify gareey karin? waayahay. midda labaad jirta hadana. midda labaad jirta waxay tahay qofkii in passportkii iyo wixii la siiyay oo ka gudbay, laakiin PIN verification-ka la waayay. Si kastoo loo diro passport-ka lama geynayo, gurigana lama geynayo, maybe wax buu qalday address-ka. iyadana sidoo kaleeto lacag lama bixi karo ilaa PIN verification-ka uu helo. adiga marka inuu qorto ku guliyo rabaa, maxaa faa'iiday marka wax PIN verification lahayn? Okay, labada ka soo tag. waxaa dhici karto yani qofka inuu ku rabo website baan ka iibinayaa, scammer uu yahay ama robot uu yahay. lacag buu ka qaaday, wuxuu ku soo diray Gmail iyo password aan shaqeynayn givegoodba. wuxuu ku dhahay website Gmail iyo password-kan uu saaran yahay, sidoo kale tane Google AdSense isla Gmail-kan ku samaysan yahay. markaas soo login gareyso ayaad arkaysaa wax walbo. marka horena wuxuu ka gaday oo ku tusay sawir fake ah oo Google laga soo dejiyay, Google AdSense dashboard Allah. marka waxyaalo dhalinyarada lagu qalday aad u badan tahay. dhowr qofood baan arkay saa lagu sameeyay. adeer cidnaha aaminin. adduunka inta joogto online ma ku jirto. rule number 1 is don't trust anyone. xitaa aniga kula hadlay sharciga koowaad wuxuu yahay qofna ha aaminin. marka haddii loo dhaho website baan ku hayaa Google AdSense baa soo aqbalay, maalin kasta wuxuu sameynayaa $9, $10, $50, $40, $60. brother and sister yaa nigala dhaadhicin waxaas. mideeda kaleeto cid website Google macquul website aan la soo aqbalin ee qofku uu ku daalin inuu iska iibiyo, laakiin website la soo aqbalay xitaa maalin kasta 10 cent sameeya cid iibinaysa ma jirto saaxiib. su-aashan maanta kadib waxaa rajeynayaa inay ka dhacday maskaxdaadana si degan aad u fahantay. website-ku lama iibin karo. haddii ay dhacayso in la iibiyo, laba option baa loo iibi karaa: in qofka identify uu waayay ama bank uu waayay. labada option haddii qofka ku dhacdo wuu ku qasban yahay, sababtoo ah ma bedeli karo. adi marka haddii ay iibsato maxay dheefay marka lacagaha sameynaysa ma iska fiirsay lacagaha la bixi karin? waa dhibaato Soomaaliya. marka saaxiib dhalinyaro waxaa rajeynayaa su-aashan maanta kadib inaan nigula qaldin, inaan Telegram nigula soo qoran website baan hayaa, inaadan aaminina. mideeda kaleeto maalmaha waxaa soo batay dhalinyaro aan cilmi aan aqoonin, scammersna ah, waxna aanan fahansanin. dadka wax bay ka qaadayaan mana caawinayaan, wix meel laga marmay yaqaanin, say kuumada daalna adunba waqtiga ka dhamaanaya. they taking time, waqti bay ka qaadanayaan, lacag bay ka lose. adduunka horta lacagtu waxaa ka muhiimsan waqtiga. waqtigu waa shay qaali ah. maanta lacagtii waqtiga horeeyo lacag waa helaysaa, laakiin waqti dib uma soo laabanayo. understand guys? marka waxaan idin sheegayaa muuqaalka haddii aad intaan soo gaartay
welina aadan subscribe saarin waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe noo saarto, like-na aad noo saarto muuqaalka si markaa uu dad badan u gaaro oo markaa ay kaga digtoonaadaan waxyaalahan social media ka socdo. sidoo kale saaxiib haddii aad tahay qof blogger ah AdSense oo kusoo aqbalay, congratulations baan ku leeyahay. laakiin haddii uu weli kusoo aqbalin iyo haddii aan weli blogger bilaabinba, YouTube-kan waxyaalo fara badan baa ka helaysaa oo markaa ku caawinayo. xitaa sidoo kaleeto blogger dhan course dhan baa ku jira, waxyaalo fara badan baa halkan ka helaysaa. haddii sidoo kale aad doonayso markaa in website aad dhisato ama lagu dhiso laga caawiyo, waxaasoo dhan waa nala soo xiriiri kartaa. website professional ah, everything ay dhammaystirin, kaliya article baa gashanayso, inta kalena ay diyaar yihiin. waa lagu soo dhaweynayaa. WhatsApp waxa uu saaran yahay description-ka hoose, sidoo kale Telegram-ka waxa uu saaran yahay description-ka, waa nagu soo biri kartaa. waxa aan rajeynay in muuqaalka aan idinku dheereenin tan iyo muuqaalka xiga. sidaa iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.